بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada qalbi furan gacmo furan iyo adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sida nooga barateenba waxaa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa guri iib ah walaalayaal soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa in aad ka heli doontaan insha Allah taala walaalayaal waxaa iib ah gurigan filada ah ee aan hadda gudihiisa tusnay haddana aan joogno qaybta banaanka waa ujeedaan waxaa marsan rinjigaas jaalaha iyo buluuga ah waa ganjaalkaas aad hadda aragtaan waxaa guda galaya xogta gurigan oo dhameystiran ee ka bogasho wacan walaalayaal gurigani waxa uu ku yaalaa xaafadda afarta jardiino weliba agagaarka Hotel Royal degmada Shibis magaalada Muqdisho marka ka soo degato isgoyska afarta jardiino ee aad soo aado dhankaas iyo Manabolio waxaa ku yaala hotel ku dhow dirjiinka oo la yiraahdo Hotel Royal hotelkaas markaa joogto ayaa waxaa aadeysaa dhanka qorax ka soo bax gurigani meeshaas ayuu ku yaalaa laamigana waxaa ka xiga laba boos oo kaliya waa laamiga jidka ku xigo marka laamiga ka soo laaxato oo jidka aad ku soo jidka jaayga ah soo raacdo ama jidka weyn ayaa waxaa u sii leexanaysaa jidka kale marka waxaa laamiga ka xiga kaliya boosaska laamiga ku sii jeeda iyo kuwa dhabarka ku haya kuwaas laamiga ku jeeda haddii aan ka hadlo walaalayaal cabirka gurigan filada ah oo ku fadhiyo cabirkiisa waa 20 lagu dhuftay 10 ama finti bardiyeeshe dadka qaarkood sida u yaqaanaan walaalayaal wajiga hore waxa uu ka naqanayaa 10 mitir dhirirkana waxa uu naqanayaa ama uu yahay 20 mitir booska asalkiisa wuxuu ahaa 20 lagu dhuftay 20 marka waa boos weyn oo la kala gooyay marka filadan waxay ku fadhidaan nus boos laakiin waa nus boos aad u weyn oo u dhigmo boos xaafadaha qaar ama cabirada qaarkood marka loo fiiriyo walaalayaal waxaa ka dhisan 5 qol oo qol uu yahay fadhi sidoo kale waxa uu leeyahay gurigan filada ah 2 suuli kushiin barando barxaddi baarkinka waa guri maasha Allah oo dhismihiisa uu fiican yahay dhismaha hadda faraha laga qaaday ma aha laakiin dhismihiisa weli waa uu fiican yahay waa dhismihii dhexe marka guri hadda kaaga baahan inaad dib u dhisto ama hawl ma aha waa guri aad sidiisa aad ku degi karto waa guri runtii family si fiican ugu filan haddii aan ka hadlo walaalayaal jidadka oo gurigani leeyahay walaalayaal gurigani waxa uu leeyahay hal jid waa hal jid le jidka uu ku fadhiyo jidka ku xiga waa laamiga marka waa hal jid le laakiin laamiga aan u dheereen jihada u jeesanayo waa galbeed u jeed jidka waxa uu ka maraa dhanka galbeed marka booskani waa ama gurigan filada ah waa hal jid le galbeed u jeed ah laamiga saddexaad ka ah waa laamiga isku xira isgoysida Manabolio iyo afarta jardiino dhanka degmada Shibis laamigaas wuxuu kala baraa degmooyinka Shibis iyo Boondere marka booskani ama gurigan filada ah waxa uu ku yaalaa adii karna meel maasha Allah xaafad fiican ah xaafadihii hore ee magaalada ah xaafadihii reer beledka haddii aan ka hadlo walaalayaal
dukumentiga uu gurigan filada ah leeyahay dukumentigiisa waa Maxamed Siyaad Barre waa dukumentiyadii hore waa dukumenti nadiif ah oo warqadihiisa ay u dhan yihiin wax ka maqanna aysan jirin xagga dukumentiga wax walwal ah kama qabtid walaal soo dhawaada ka faa'iideysta fursadan qaaliga ah haddii aan ugu dambeyntii ka hadlo qiimaha oo gurigan ku fadhiyo walaalayaal wuxuu gurigan ku fadhiyaa lacag dhan ama lagu rabaa 145,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah iyo heshiis runtii waa qiimo aad iyo aad macquul ah waxaan dhihi karnaa waa fursad waa dhul maaragtay xaraash ah oo lacag aad iyo lagu gadaayo duruufo jira awgood qofka iskale ayaa lacagta muctaad u ah marka laga faa'iideysto walaalayaal waa guri dhisan haddana meel fiican ku yaala laamiga saddexaad ka ah xaafadihii hore ah dukumentigiisa uu Maxamed Siyaad Barre yahay haddana qiimihiisa uu aad u jaban yahay 145,000 doolarka Mareykanka ah kaliya lagu rabo laga faa'iideysto lagu soo yaaco walaalayaal haddii aan ka hadlo walaalayaal waxyaabaha oo ku anfici kara ama siyaalaha oo gurigan ka anfici karo kow waxa uu ku fiican yahay deegaan waxaa yeelay guri ku yaalo xaafad camiran xaafadihii hore ah meel istiraatiiji ah ku yaalo dhihi karaa magaalada santarkeeda waxaan ku dheereen oo u dhow yahay suuqa weyn ee suuq bacaad sidoo kale suuqa Monopolio waxaa kale oo gurigani uu ku fiican yahay maalgashiga maxaa yeelay waa dhul mustaqbal leh xaafad fiican ku yaalo haddii aan si gaar ah uga hadlo degmada uu ku yaalo ee Shibis waa degmo sanadadan dambe kobac aad u fiican sameynaysa xagga dhismaha ah waxaana aad ugu soo badanayay guryaha dabaqyada ah marka gurigan waxaa ka furan fursad ah in waqti aad u kooban lacagtiisa ay aad u kororto ama haddii aad ka dhigato guri dabaq ah oo intaas apartment ka kooban lacag fiican ka soo gasho sidoo kale guriga haddii hadda sidiisa aad ku kireysato oo aadan deegaan ka rabin kira ahaan waa guri aad u fiican oo lacag fara badan ay ka soo geli karto marka gurigan waxaan dhihi karnaa 3 fursadood bay ka furanta ama uu leeyahay kow inaad deegaan ka dhigato 2 inaad mustaqbalka iyo lacag kororsi aad u gadatid sidoo kale inaad kireysatid ama inta dhistid markaas uu qarash fara badan ka soo galo oo aad ka macaashtid shirkadda Dallas Real Estate haddii aan nahayna howlaha dhismaha insha Allah waa ka caawinaynaa inaan ku dhisno guri qurux badan diyaarsan ayaan ka shaqeynaynaa haddii aad gurigan iibsatid marka soo dhawaada walaalayaal haddii aan si kooban ugu soo celiyo gurigani waxa uu ku yaalaa xaafadda Afas Jardiino agaarka Hotel Royal dhanka degmada Shibis magaalada Muqdisho waa guri filla ah waxaa ka dhisan 5 qol 2 musqul jiko dukumentigiisa waa Maxamed Siyaad Barre qiimaha lagu rabo waa 145,000 doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah iyo heshiis marka soo dhawaada walaalayaal haddii aad dal dhisnahay waxaa diyaar u nahay inaan soo tusino haddii aad ku qanacdaan oo tayada jeceshiin aan kaga wareejino ugu dambeyn waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha aad ku xiran tihiin shirkadda Dallas Real Estate waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambalaalkan aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabaha mustaqbalka aan soo gelino insha Allah tacaala waa mahadsantihiin mar kale wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.